war degdeg ah ciidanka duufaan oo soo gaaray duleedka magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Sheekh Aadan Madoobe oo isaga soo carray magaalada Baydhabo isagoo ku sugan magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya haddaba maxay tahay cabsida soo wajahday Sheekh Aadan Madoobe madaxweynihii hore ee Koonfur Galbeed Cabdicaziz Maxamed Xasan Laftagreen oo hanjabaad culus ka soo diraya gudaha magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya qodobadaas iyo sidoo kale qodobada kale markaas inoo soo kordho ayaan idin la wadaagi doonaa daawadayaal balse haddii ay tahay marka kugu horeysay aad soo boqoto fadlan YouTube-keena subscribe saar gambalka furo muuqaalkana like saar wixii fikirkaaga ana qaybta hoose faalada noogu reeb waad ku mahadsan tahay daawashada iyo sidoo kale la jaanqaadka wararkeena mahadsanid daawada aynu ku bilowno ciidanka duufaan oo markaan ka tirsan ciidamada markaas Jubbaland ayaa goordhow waxay soo gaareen duleedka magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ciidankan ayaa lagu soo waramayaa inay ka soo ambaxeen gudaha magaalada Kismaayo iyagoo haatan markaas soo gaaray duleedka magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ciidamadan sababta ay markaas Jubbaland ugu soo tageen waxa ay tahay inay markaan garab siiyaan oo ay ka barbar dagaalamaan ciidamada daacad u ah madaxweynihii hore ee Koonfur Galbeed Cabdicaziz Maxamed Xasan Laftagreen kuwaasi oo markaas ku sugan duleedka magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya haatan waxa markaasi bilowday isxulufaysi iyo sidoo kale markaasi in ay garab siiyaan maamulada kale ah Jubbaland iyo sidoo kale Koonfur Galbeed waa madaxweyne Cabdicaziz Maxamed Laftagreen oo xilka xoog looga tuuray sidoo kale Axmed Islaam Axmed Madoobe oo haatan garab siinaya Cabdicaziz Maxamed Laftagreen isagoo markaan u soo diray ciidamadii ugu badnaa oo markaasi ka tirsan kuwa Jubbaland gaar ahaan duufaan oo haatan soo gaaray duleedka magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya xaaladda Baydhabo oo noqonaysa mid jahawareer ah kadib markii ciidankani ay soo gaareen iyagoo horay markaasi duleedka Baydhabo ay ugu sugnaayeen ciidankii markaasi taawacnaa Cabdicaziz Maxamed Xasan Laftagreen ciidamadan ayaa lagu soo waramayaa in ay gaarayaan ilaa iyo 500 oo askari iyagoo markaani wata gawaarida gaashaaman iyo sidoo kale hubka noocyadiisa kala duwan gawaarida gaashaaman oo ay wataan xogaha iyo sidoo kale macluumaadka aan helayno sida ay inoo xaqiijiyeen saraakiil sarsare oo markaasi ka tirsan ciidanka duufaan oo haatan soo gaaray duleedka magaalada Baydhabo ayaa waxa lagu soo waramayaa inay gaarayaan ilaa iyo sidoo kale 15 cabdi bile oo kuwaasi oo ah nooca markaasi qumaatiga u kaca sidoo kale markaasi loogu talagalay markaasi dagaalada foolka ah Axmed Islaam Axmed Madoobe ayaa haatan waxa uu muuqda markaasi in garabkii ugu xoognaa uu siinayo Cabdicaziz Maxamed Xasan Laftagreen oo markaasi dawladdu ay xoog ugu saartay gudaha magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya maxaa laga filan karaa ciidanka duufaan oo haatan soo gaaray duleedka magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyadoo markii horeba maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya tabar ay u weysay ciidankii markaasi taawacsanaa madaxweynihii hore ee Koonfur Galbeed Cabdicaziz Maxamed Xasan Laftagreen haatan waxa ay helayaan markaasi gurmadyo xoogan oo markaasi kaga imaanaya dhankaas iyo Jubbaland xaaladdu Baydhabo waxa ay noqonaysaa markaasi mid qasan kadib markii halkaasi ay isku bahaysanayaan ciidan markaasi ka tirsan maamulkaasi Jubbaland iyo sidoo kale markaasi ciidan horay markaasi daacad ugu ahaa misana taageersanaa xukunkii 7 sano ee Cabdicaziz Maxamed Xasan Laftagreen Sheekh Aadan Madoobe oo markaan isaga soo carray magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya kadib markii culays xoogan uu kaga dareemay qulqulka markaasi ciidanka fara badan oo markaasi ka imaanaya markaasi Jubbaland iyo sidoo kale ciidankii horay u taabacsanaa Cabdicaziz Maxamed Laftagreen oo markaasi ku sugan duleedka magaalada Baydhabo iyagoo ciidankani marba marka ka sii dambeysay laga filan karo inay guud ahaanba cagta markaasi la soo galaan ama gudaha ay la soo galaan gudaha markaasi magaalada Baydhabo oo ah xarunta ku meel gaarka ee maamulkaasi Koonfur Galbeed Soomaaliya Sheekh Aadan Madoobe ahna hogaamiyaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya haatan waxa uu markaasi jilbaha qabsaday Xasan Sheekh Maxamuud sidoo kalena markaasi waxa uu doonayaa in markaasi uu markale dib ugu laabto markaasi in uu ka tanaasulo madaxtinimada ama sidoo kale hogaaminta maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya kadib markii halkaasi ay kaga muuqatay sidoo kalena awood ciidan oo markaasi uusan waxba ka qaban karin magaalada Baydhabo haatan waxa ku sugan markaasi ciidan markaasi بوليس ميليتارا iyo sidoo kale ciidan markaasi ka tirsan kuwa maamulka Koonfur Galbeed iyo sidoo kale markaasi ilaalo shacab markaasi oo halkaasi iyadu ay dawladdu goosay si ay markaasi halkaasi ugu difaacaan markaasi duulaanka markaasi ay ku soo qaadi karaan ciidankii hore u taabacsanaa Cabdicaziz Maxamed Xasan Laftagreen magaalada Muqdisho shirar kala duwan ayuu markaasi Sheekh Aadan Madoobe kula yeelanayaa
madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday ee xasan sheekh maxamuud iyo sidoo kale ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre waxa ayna markaasi ka tashanayaan aayaha koonfur galbeed iyo sidoo kale waxa laga yeeli karo xaaladda haatan ku soo cusboonaatay gudaha magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka maamulka koonfur galbeed Soomaaliya Cabdicaziz Maxamed Laftagareen waxa uu markaasi marba marka ka sii dambeeyso hanjabaad toos ah oo ka soo diraya gudaha magaalada Kenya gaar ahaan magaalada Nairobi isagoo markaani sheegay in marba marka ka sii dambeeyso markaani uu doonayo markaasi in uu dib ugu soo laabto gudaha magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ee maamulka koonfur galbeed Soomaaliya Cabdicaziz Maxamed Laftagareen waxa uu sheegay dhawaana mise dheeraata waxa uu leeyahay waxaan dib ugu soo laaban doonaa magaalada Baydhabo oo horey aan markaasi ugu aaminsanaa in aan ahay madaxweynaha markaasi dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya waxa uu aaminsan yahay ilaa iyo haatan inuu yahay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Cabdicaziz Maxamed Laftagareen isagoo markaani sheegay in ciidanka ku sugan gudaha magaalada Baydhabo isagu ay ka marqaataan sidoo kale ay haatan helayaan garab kale oo markaasi ka tirsan kuwa maamulka Jubbaland kuwaas oo lagu magacaabo Duufaan ciidamadan oo markaasi madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland Axmed Islaam Axmed Madoobe oo markaasi dhawaan tababar cajiib ah oo markaasi ugu soo xiray gudaha magaalada xeebta Kismaayo ayaa haatan waxay soo gaareen duleedka magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka maamulka koonfur galbeed Soomaaliya waana markiisii ugu horeysay ciidan ka tirsan Jubbaland markaasi ay soo gaarayaan gudaha ama markaasi duleedka magaalada Baydhabo si ay markaasi magaalada Baydhabo ay markaasi duulaan ugu soo qadaan iyagoo doonaya markaasi in ay Xasan Sheekh iyo kooxdiisa iyo Aadan Madoobe guud ahaanba ay ka farmaroojiyaan sidoo kalena magaalada Baydhabo ayna dib ugu soo celiyaan madaxweynihii markaasi dawladdu ay markaasi xoog ugu saartay gudaha magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka maamulka koonfur galbeed Soomaaliya guud ahaanba xaaladda siyaasadeed ee magaalada Baydhabo ay qasan tahay shacabka markaasi ayaan waxay soo wajahday markaasi cabsi xoogan kadib markii ciidankani ay ka warheleen xogtooda in ay soo gaareen duleedka magaalada Baydhabo ee caasimadda ku meel gaarka ee maamulka koonfur galbeed Soomaaliya awoodda markaasi mucaaradka Cabdicaziz Maxamed Laftagareen way sii xoogaysanaysaa isagoo markaani awoodii ugu badnaa markan haatan ku soo dhigaya duleedka magaalada Baydhabo marba marka ka sii dambeysana Baydhabo waxa laga filan karaa markaasi in uu ka qarxo dagaal culus oo markaan u dhaxeeya markaasi ciidankii markaasi taabacsanaa Cabdicaziz Maxamed Laftagareen iyo sidoo kale markaasi ciidanka Duufaan oo garab siinaya iyo sidoo kale ciidanka markaasi dawladdu ay halkaasi geysay xaaladdu ma sahlana Aadan Madoobe kulamo gooni ayuu waxa uu ka wada magaalada Muqdisho isagoo haatan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kale Xamse Cabdi Barre markaasi kulamo kala duwan kula qaadanaya sidii markaasi loogu hortagi lahaa ciidankani Duufaan iyo sidoo kale ciidankii taabacsanaa Cabdicaziz Maxamed Xasan Laftagareen haddaba maxay kula tahay in Aadan Madoobe uu guud ahaan isaga soo cararo magaalada Baydhabo xarunta ku meel gaarka maamulka koonfur galbeed Soomaaliya sidoo kalena ciidamada Jubbaland ay soo gaaraan gudaha magaalada Baydhabo sidoo kalena Cabdicaziz Maxamed Xaftan Laftagareen markaasi isaguna hanjabaadyo marba marka ka sii dambeeyso oo ka soo dirayo magaalada Nairobi caasimadda dalka Kenya wixii fikirkaaga qaybta hoose faalada noogu reeb hadii aad ila soo gaartay dhamaadka qodobada waxaan mar labaad ka codsanayaa inaad YouTube-keena subscribe saarto gmailka aad furto sidoo kale muuqaalkan aad like gareyso si meel leer u gaaro mahadsanid daawade